umada waa si kale u arkayaan warkan hadii la rabo wiila la dilay iyo tana wiilkiisa la dilay ma aniga waa ku qanacsana waxaan ugu qanacsana hadii aan raali ka ay arintan ama isleeyahay khalada dhacay khaladkan khalad ha lagu saxo no wax dhici kara ma waxa ogaanaysiin qof kasto muslim ama Soomaali ama beeshan ka soo jeedo ku fikir ama ku sarkaalkan shalay waxa lagu hortoogtay wiilkiisii maantayna waxa uu ku baaqayaa nabad iyo in laga hortago dhimashada wiilal kale oo ka dhalata shaqaaqadaas maxamed sheekh darajadiisu waa kabtan waana taliyaha hay'adda sirdoonka qaranka ee NISA ee degmada Marka wiilkiisa oo isna askari ahaa ayaa ku geeriyooday isku dhac rag hubaysan oo deegaanka ah iyo askartiisa dhaxmaray kaasoo Marka ka dhacay laakiinse wixii la filayay waxaan ahayn ayaa dhacay intii laga keenay wadanka meel laga keenay meel uu maanta taagan yahay cidii darbu u fadhiso ama hotel u degan ama dibad u jirto ama dalkan ama magaaladan gudaheed u joogto dibkaan maanta dhacay ama jawaaba ka bixayso ama tola ku kala tagaayo xaraamay ka tahay ku riyoonin ma lagu riyoonay waxa idin sheega mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad idin sheega Abdiqani idinka dhalay waa wiilkiina hadii lagu qancaayo oo biimal ku qancaayo Abdiqani inuu dhinto wax ka daba ama kar ma jiraan wax hortii soo karna male wax dhigo ka dhac kar male hadii la yiraahdo wiil kala aad dhashay xataa waa loo baahan yahay hadii ay laba yihiin ama saddex yihiin ama afar yihiin oo tolkaas ku qancay diyaar waay yaan la dhihin wiilkana dhintay iyo ama nin loo dilaayo ama maxalla ama saas la yeelaayo xaraam ay naga tahay cid alla cidii isku daydo fal noocaas ama tiraahdo wiilkan si loo dili karaa ma jiraan mas'uuliyad anaga hayno waxay wax walba nagu dhacayaan mas'uuliyadda aan hayno awgeed wax kale wax nagu dhacaya ma jiraan anagu waa taaganahay waligeena taagneyn sanadkii tagay bishii November 16keedii ayaan booqday deegaanka Buufow Bacaad oo u dhaxeeya Marka iyo Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose halkaas oo talis u ah ciidanka kabtan Maxamed Sheekh waxaan taliyaha la yeeshay waraysi aan ku soo bandhigay hogaamintiisa dhinaca ciidamada iyo hibooyin kale oo gaar ah oo markaas ii muuqday iyo shakhsiyaad aan hortagan waxaan ku yiri dalkan in la difaacaas rabaa hubkana lagu difaaca sidii ay yihiin dawladda loo wareejiyo lagu difaaca qorigaas bay ka imka meeqo jooga $15,000 la kala siista saddon qori min $15,000 sheeg meel ay yeelan difaac jala yeelan Janaala u dhiibni Buufow Bacaad ay yeelan bilay xoolo ay dawladda tirsiisay ma laakiin waa garabkeed in lagu caabay macal rasaas ku xiran go'aan ka gaarin macal beeshilada ka soo qaadin qof kasta beeshiisa ha go'aansado in dawladda ay wax noqoto hub gaadiid dagaal oo badan iyo askar intii la doono u dagaalami kartay uu haystaa uu heli karay inuu aarguto balse waxa uu dareensan yahay cawaaqibka xun ee ka dhalan kara haddii ay shucuurtiisii kacsanayd hogaamiso taliye Maxamed Sheekh waa tusaale nool oo ay ku dayan karaan ummadda Soomaaliyeed waxa kaliya ee lagu kala horumarsan yahay waa adkaysiga iyo in laga fakaro berri Soomaalidu waa dad badi isku dagaal qabaa'il oo mararka qaar tanaasulku ku yar yahay waxayna in badan oo kamid ah geesinimada u yaqaanaan inay aargutaan Maxamed Soofaysane telefishinka qaranka Muqdisho